السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييمها iyo qaayaha badan mar labaad iyo isku soo noqod wanaagsan channelkan oo aad uga barateen barnaamijyo aad u xiiso badan sida qosooyin jacayl oo taxana ah murti maad iyo madadaalo oo aan filayo inaad aad uga wada heli doontaan kana kororsan doontaan khibrado iyo waayo aragnimo ku aadan dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha haddaba maanta maxaan halkan idinku soo gudbinayaa mawduuc aad u xiiso badan oo aad wada sugayseen mawduucu wuxuu noqonayaa mawduuca ayaa wuxuu ku saabsan yahay qaabka ugu fudud ee aad ku garan karto ruuxa sida dhabta ah kuu jecel kolka ay noqoto ka hadlidda arrimaha jacaylka iyo qisooyinka la xiriira durbaba waxaa qalbigaaga ku soo dhacaysa in jacaylku uu yahay nolol iyo farxad kolka uu daacad yahay dhanka kale dadka qaarkii waxaa laga yaabaa ama dhici kartaba in maqlidda ereyga jacayl ay ka qaadaan xanaaq iyo xasaasiyad taasoo ay ugu wacan tahay inay soo dhadhamiyeen dhankii kalaalaa ee jacaylka xaqiiqdii waxaa maragma doonto ah in qof weliba uu jeclaan lahaa amaba haatanba jecel yahay inuu lahaado xiriir jacayl oo daacad ah kaasoo horseedi kara mustaqbal loo aayo oo lagu balaalo haddaba su-aasha isweydiinta leh waxay tahay ma jirtaa qaab fudud oo aad ku ogaan karto ama lagu ogaan karaba ruuxa ama qofka sida dhabta ah ku jecel mase jiraan calaamado lagu garan karo in aad adigu si dhab ah qof u jeceshahay amaba lagu jecel yahay jawaabta su-aashan ayaa waxay noqonaysaa haa waa uu jiraa qaab aad u fudud oo aad ku ogaan karto ruuxa sida dhabta ah ku jecel haddii aan soo qaato calaamadaha aad ku garan karta ruuxa sida dhabta ah ku jecel qodobka koowaad waa xushmadda iyo ixtiraamka qofka sida dhabta ah ku jecel wuxuu ixtiraamayaa shakhsiyadaada qoyskaada asxaabtaada iyo hadalkaada intaba waa qof mar weliba kuu muujiyay ixtiraam laga dhadhansan karo kalgacal aad u qoto dheer qodobka labaad qofka sidii dhabta ah ku jecel waa qofka ka taliya wanaagaada oo aan marnaba kuu quurin xumaato noocay doontaba ha ahaatee qofkaas waa qof ilaalinaya sharaftaada haybadaada iyo karaamadaada intaba qofka sidii dhabta ahi kuu jecelay wuu kaa xanaaqi karaa qalad dhacay dartii balse marnaba lagama yaabo inuu kaa tago oo had iyo jeer waa qof aanay saameyn ku yeelanaynin ciladaha yaryar ama isfahmi waaga idiin soo kala dhexgala xitaa haddii aadan ka raalli garaynin qalad yar oo aad ka gashay asaga ama ayada ayaa diyaar u ah in uu xiriirka sii hagaajiyo oo uu ka ilaaliyo dayaca iyo burburka intaba ruuxa sida dhabta ah ku jecel waa ruuxa kula qaybsada xilliga aad murugaysan tahay oo niyadda kuu dhisa iskuna daya inuu murugta kaa baabi'iyo mana u dulqaadan karo ruuxaasi inuu arko adiga oo si un u murugoonaya ama isu ciilkaambinaya ruuxa sida dhabta ah ku jecel wuxuu ku siiyaa kalsooni oo lagama yaabo inuu kaa shakiyo ama uu si kale ku arko wuxuuna mar weliba ku dadaalaa farxaddaada haddii aad aragto ruux ku sir warramayo oo kugu qarsanaya siro culculus ay dhici kartaba xataa inay ku jiraan siro la xiriira arrimaha qoyskiisa ama qoyskeeda mar weliba kula socodsiinaya xaaladihiisa hoose xaqiiqdii ruuxaasi waa ruux si dhab ah ku jecel marka aan sidaa leeyahay waxaan ka hadlayaa lamaanaha uu ka dhexeeyo xiriirka jacaylka dhanka kale ruuxa sida dhabta ah ku jecel marna lagama yaabo inuu kugu maaweeliyo been la soo qurxiyey ee waa ruux kaaga hadla xaqiiqada mar welibana runta kuu sheega xitaa haddii ay runtaasi asiga ama iyada ay lid ku tahay qodob kaloo muhiim ah ayaa wuxuu yahay iska warhaynta ruuxa sida daacadda ah ku jecel waa ruux mar weliba ka warhaaya xaaladaada oo waa qof mar weliba ku soo xiriiriya amaba ku soo boqda haddii aad hal meel wada joogtaan ruuxa sida dhabta ah ku jecel waa ruux kuu dabacsan oo haddii aad isku dhacdaan xitaa diyaar u ah inuu kuu soo noqdo ama ka soo noqdo qaladkiisii oo uu ku raaligareeyo una dulqaato wax weliba oo dhankaada ka soo wajaha waa ruux kaala tashta tallaabooyinka uu qaadayo kuwana soo xiisa xilli weliba ruuxa sida dhabta ah ku jecel marna kama dherga sheekadaada wehelkaada iyo aragtidaada intaba kolka aad si qoto dheer ah u eegto ama u fiiriso qofkaasi sida dhabta ah ku jecel ma awoodo inuu indhaha kugu sii haayo oo waa uu kaa indho dadbanayaa maxaa yeelay uma dulqaadan karo fallaaraha ilayska jacaylka ee ka soo baxaya indhahaada qofka sida dhabta ahi ku jecel waa qof mar weliba soo hadal qaada nolosha mustaqbalka iyo aaya ka talinta iyo geleelidda reer lagu nasto lagu nagaado qofka runtii sida dhabta ahi ku jecel waa qof aan marnaba ka gambanin inuu barto amaba la xiriiro qoyskaada sida aabe hooyo walaalo iyo asxaab intaba una muujiyo xushmad xad dhaaf ah
haddii aad haysato qof leh calaamadaha ku soo xusnay runtii waxaad tahay qofka ugu nasiibka badan dunidan haddii aadan haysanna waxaan kuu rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aad u heli doonto insha allah mawduucan ku saabsanaa sida ugu fudud ee lagu garan karo ruuxa sida dhabta ay ku jecel waxaa idiin soo diyaariyey idinna soo jeedinayey anigoo ah al-ustaad axmed diri afrax adigana waad ku mahadsan tahay ka mid ahaanshaha macaamiisha ku xiran youtube channelka axmed diri afrax haddii aad macaamiisha ka mid tahay waad ku mahadsan tahay haddii aadan ka mid ahayna fadlan si aad u hesho macluumaad iyo qisooyin cajiib ah xigmado murtimaad iyo madadaalaba rukun ka dhigo youtube channelkan waa axmed diri afrax oo idiin rajaynaya nolol farxad leh meel weliba oo aad dunida